السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات سومالي محمد ملك استاذ شوكتان صاحب بيال يا قرابو فرانس فاميلي ان فانسي انت ما قاعد موقعك تقانا انت إبران دونتا وان السلامي ان سومالي محمدي سلام كبعدي ما انت وحن هيا برنامجكي ان كو غدا جيرنay oo ahaa Baydan iyo Baashi xubbi iyo xiiso oo halkii ka sii socda waana nasteexa samafal qofka idin soo gudbinaysa waxaan ka codsanayaa horta inaad like tirahdaan share tirahdaan subscribe tirahdaan subscribe aad iyo aad gambaleelkana furataan soo in kugu soo dhac barnaamijyadeedu markasta barnaamijyada xiisaha leh in sheekadii jacaylka ay ahayd oo ahayd xubbi iyo xiiso Baashi iyo Baydan ayaan sii wadi doonaa Baashi iyo Baydan waxay noo joogeen markii ay guurka ku heshiiyeen oo ay Baydan ka aqbashay Baashina u soo bandhigtay ما شاء الله sida way u sii soconaysaa Baashi wuxuu ahaa wiilkaas jacaylku galay Baydanna waxay ahayd gabadha jacaylku galay oo laakiin jacaylka xishoodka badan watay Baashi halkiiba ka sii waday Baydan wuu imaan jiray markii uu ka soo galo taraaga ka soo galo na wuu imaan jiray markuu aadayana wuu soo mari jiray shaahu ka cabi jiray shaahu ka shuban jiray marka sheekadii sidaas ay ahayd Baydan dabcan ayadu maadaaba inta guur la weydiiyay ay ku heshiiyeen waxay islahayd guur baa dhici doona si dhaqsiyo badan laakiin Baashi wuxuu iska ahaa nin iska hawl badan oo iska shaqo badan oo marna taraag ku maqan marna waxay tiri siiba waxay tiri wuxuu ahaabay tiri rag qayile ahaabay tiri uu iska yara qayilaa wixiisa dadku saartaa maxay ahaaytay rag saaxiiba oo mala isla qayilaan iyo xaasal la socday tiri ani waxay tiri chat markaas waxba ma arkayn bay tiri dadku dhan ba qayili jiray marka waxay tiri halkiiba Baashi iyo saaxiibadiis bay imaan jireen halkiiba shaahooda shuban jireen Baashi waxay tiri wax kaleeto oo guurkii aan ku heshiin aan ahayn iyo sheekada aan iska socota marmar waxay tiri soo raaci jiro guriga uu soo raaci jiray cabaar buu xataa waxay tiri marka qaar kood guriga waxay tiri aniga gabdho kale ku jirnay cabaar buu inta xataa guriga yimaado waxay tiri iska qayilo iska dheelman jiray marmar asagay saaxiibadiis ba imaan jiray oo meeshaas oo kale gogol loo dhigi jiray tiri iska qayil iska bixi jireen Baashi waxay tiri nin asagu sida hawlo kale taba gabdhaha cashada la geeyay iyo gabdhaha shopping loo sameeyay iyo waxa malaha waxay tiri ma uga cadayn bay tiri anuguna waxay tiri waxaan iska jeclaystay maadaaba Baashi uu yahay ninkii kaliyaha oo maaragtay aan adduunida ka fiirsanayay inuu marmar aan waqti isku helno oo maaragtay casho igeeyo oo waxay tiri shopping ii keeno oo waxay tiri marka waxay tiri runtii qof waxay tiri iska yara qalbiga reer magaalka ahaabay tiri hadda dumarkana waad ogtiinoo mar hadday wax iska yara jecel yihiin waxa la yiraahdaa dumarka iyo caruurtuba meel bay ka yara iskaga mid yihiin waa meesha qalbi jilaaca iyo maaragtay qofka dumarka waxa laga yaabaa maanta inay hadlayso oo controlka marmar ka dhumo oo maxay ahayd mar iska hadasho mar maaragtay runtii waxyaabo badan oo wax dumarku ay garanayaan ama ay garaadkoodu leeyahay ama rag inay salahayn baa dhici karta rag iska baa okay waa ku guursanaya oo mooday naagta inuu ku guursanayaadi meel ay ugu xiran tahay balse qofka dumarka waxay doonaysaa maaragtay in la casho geeyo oo shopping loo sameeyo oo la soo dhaweeyo oo hadiyada loo keenkeen waxyaabahaas iska rabtaa marka waxay tiri ninka odaga ahaa maalintii waa ku guursanaya waxaan noo xigay in bay tiri wuu yimaadaa halkiiba waxay tiri marna maqaayadii fariista meeshii waxay tiri bahalkii shaaha lagu karin jiray marna yimaadaa marna asaga xaafaddu yimaadaa marna waxay tiri wuxuu soo raaca saaxiibadiis halkiiba waxay tiri sheekadii Baydan qoftii la oran jiray bahal jacayl oo ba'an baa ku dhacay qalbigaasay ka yara oloshaa way yara gubataa way yara walwashaa waxa weeye ma soo bandhigan karto waxaasaan dareensanahay ma dhihi karto waxaasaan rabaa ma dhihi karto way siira geejinaysaa laakiin waa isugu timid kalsooni la'aan iyo shak badan baa galay gabadhii niyaddaba waxay gashatay ninkan odaga ahi malaha meeshu warka ku maraayay oo maadaaba aad ku tiri war ma guur baa rabta mise gaabsi baa rabta oo iska yiri guur baan rabaa maahane wax ka soo saxiiba ma jiraan halkiibay way cidida hoos uga qalinaysaa waxa way yaabantaa wixii baa iskugu yimid oo ninkan odaga ahina
asaga laftigiisu markii dambeeto marmar buu u yimaadaayo uu yidhahdaa haya baydano waa nabad baashiyo walaalay waan ku jeclahay isagu saas uga dhaha waan ku jeclahay wallaahi ayadu laakiin xataa markuu yidhaha waa ku jeclahay anna waa ku jeclaa ma tiraahdo waayo dee bahalka xishoodahaabaa faraxun ku haaya ayadiiyo dee kaxa ayayse odhan karin waa ku jeclahay waxay is leedahay ninkan odagaahi waaba nin maasha allah belay boy oo wuxuu rabaa dumarkaba sheekadaas ula tagaa maahane wax ka soo socdaaba ma jiraane baydaney afkaaga iska hayso haya baydan waan ku jeclaa waxay tiri xoogaan waxay tiri ma dhaabay tiri laakiin ja'diiba waa iga soo bixi laada bas baashi markii dambe asagana waxa ku dhacay wax kalsooni la-aan baa ku dhacday war qoftaan baydaney waa ku jeclaa markaa tirahay weligaa waa ku jeclaa kuma aysan dhihin weligaa dadka kuma weydiiso ma tiraa orinkii baashi yahaa xaggee jira berigii dambe kalsooni daraa ku dhacday xoogaabuu socodka yareeyey meeshuu imaan jira xoogaabuu yareeyey ayadii marka waaba kasii dartaba boofis ahaabaa ku dhacay baashi laftigiisa boofis baa ku dhacay labadii qofba boofis baa ku dhacay laakiin jacaylku waa halkiisii baashi wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo qoftaani kuma jeclaa marka aad tiraahdo waa ku jeclaa maxay u aamustaa bas baasha iyo baydan dadku qabiilay adeegsadeen ma ogta laba qabiil bay kala ahaayeen oo laba qabiil oo soomaalida qabiilada waaweyn ayay kala ahaayeen baydan qabiilkeedu waxay dhaceen ninkan ku diraan ninkan ku ag fadhiyo oo meeshan fadhiyaa ma rag baad weyday maxaa ku ag fadhiisay ninkan dhodhodho waxaasay yidhaahdaanoo dhag jal quma siiso baasha laftigiisa naagihii uu shukaansan jiray iyo asxaabihiisii waxay leeyihin kaalay qoftaani maxaa ku ag dhiganiyo waaba meesha waabta ku yara waalatay malaha laguma rababa adaa waa shay asaga ruuxiisa waxbaa la soo sheegaan shaki baa labada qof kala galay laakiin jacaylku waa baraka malay taaganta baydan waxay gaartay heer ay habeenkii iyo maalintiiba isu su-aasho ciilo way ninkii aad tiri ku jiri waa ku guursanayo aad tiri waa i guurso oo ilaa hadda aan kuula imaan waa ku guursanayo baashi asagana waxaa ku dhacday kalsooni laan baa ku dhacday baashi marka waxaa markii dambeeto shaqaale u noqday oo baabuurka kirishbay u noqday baabuurkiisa gabadha baydan in ay qaraaba yihiin baashi marka wuxuu la saaxiib yahay gabadh wiilkaas oo la shaqeeyo iyo gabadhii awalba baydan qaraabadeeda ahayd oo meesha wakayada isla lahaayeen labadaba saaxiib buu leeyahay wuu weydiiyaayo wuxuu yidhahdaa horta kaalay baydan oo i weydiinaysa ma aragtan oo dhahaysa ninkii baashi xaga ka baxay maya wallaahi marmar buu wiilka soo diraa wuxuu yidhahdaa hebelow bal u tag maqaayad meeshii tagoo shaaha lagu karinayo dabakaayadiio bal qoftii baydana inay kaa weydiiso bal ora tag waa u yimaado wiilku waa salsalaamayo shidanaaba shidan baydan ma weydiiso laakiin boofiskii ku dhacay wuxuu gaarsiiyey heer ah baashi marka horeba sheeko wati cayaar buu wati marka baydan isgeeji hadhow buu yidhaha war may kaa weydiisa maya gabadhii buu yidhaha heblaayoy baydana weli i weydiinaysa maaragta maya bal kusoo qaado waxaad tidhaahdaa aaw ninkii baashi ee baryaan xaga ka baxay ku dheh allah naa heblaayoy baydanay baashi horta xageadi baashi wallahi bilaahi naagaa waxay yidhaahdeen naagaa ma guriga ugu yimidoo naaga markaasay gabadhii xanaaq waa xanaaqay tiri oo adugu maxaad iigu sheegaysa baashi iyo naagihiisa naa afkaaga cisho hadda waxay tiri qalbiga maxaan uga gubanaya mataqaanaa waa meesha iigu dambeysay marmar waxay tiri waxaa ii yimaada wiilkoo wuxuu yidhahdaa war waxaad tidhahdaa bal baasha waa jiran yahayoo waa bistiisoo gurigu jiifa soo dhex markaasuu ku yidhaahdaa baydanay ma ogtaa baasha inuu jiran yahay shidanaaba shidan maad soo booqanaysaa horta baashi waa jiran yahay shidanaaba shidan allah cafiyon bay tirahdaa baydan marka dhowr arrimood ayaa markaas qalbigeeda soo galay waxay leedahay malaha baashi ma jiranoo waa belayboyo hablihiisiibuu kala wadwadaa malaha waa shirqool baa lagu dhigahayaayo gurigiisa intaad tagto awalba dantiisu waxay ahayd inuu kuga cayaaree malaha cayaar buu rabaa mar waxay leedahay ama jiran yaho runtiis tahay mar waxay is leedahay armaanta gurigii tagto aad naaga meesha ugu tagtaay waxba kaa soo raacaan mar waxay leedahay maya bulshadaaba waxay ku dhahaysaa qoftii baydan ahayd gurigii baashiba iska taagantaho
waa naag guryaha nimanka tagta waxay marka baydana waxaa weeye qof waxaa weeye inta baadiyahaas lagu soo koriyey oo hooyooyin adag iskaga dambeeyeen hooyadii dhashay iyo hooyo kaleeto magaalada kusoo la joogtay aad iyo aad isku xilaalisa oo aaminsanba hadday nin gurigeeda tagtaba sharafteeda halka inay ku tagtay oo ku baaba'day waa la yaab maantana waxaa laga yaabaa gabdhihii inay raggiiba qooranayaan marka bayden waxay samaysay way isla hadashay waxay istiri beeshe markii horeba playboy bu ahaayo hadalka meesha ku maraayo kuma rabin sheekadan waa ku jeclaana wuu iska yiraahdaa dee waa rag iyo hawshiis hadba wuxuu leeyahay heblaayo ma u maqan yahay meelahaas uu leeyahay waa jirinahana waxa waaye inuu wuxuu rabaa kuga cayaaro okay baashina wuxuu halka qalbi gashta boofiskii ku dhacay wuxuu noqday baydan kuma rabto warkeedu ma jiro marmar buu marka meesha yimaadaa baydantii marka waxay isku dayda waxay istiri maadaaba baasha uu sidaa ku galahayo oo asahay nin guur u soo jeeda oo asahay nin guurba ku soo qaadaya iska yara shukaansan ragoo dee xanuunkan ku haya bal inuu kaa yara maaragtay yaraado bal wax uun samee berigii dambe baydan waxaa way ragga kale way la hadashaa way la sheekaysataa way la boodboodaa laakiin qalbigeeda ilaah baa og waxa ku jira baasha oon kaliyaha ku jira marmarkuu yimaado baasha meesha wuxuu arkaa baydan oo raggii la sheekaysanayso oo shaah ma ku siiyaayo ha qosol iska kenkeen oo uu yiri ow si nimanka kale way la qoslayso la sheekaysanayso aniga laakiin maba i fiirinayso xataa mana isoo raadinayso markaan waa ku jeclahan waxma iga daba dhahayso so this woman waxaa weeye she is way ugu cayaaraysa asagana boofiskaasaa ku dhacay ana boofiskaasaa ku dhacay baydan iyo baashe sheekadii xubbi iyo xiiso waxaan yaro ku darahayaa sanad bay horta qaadatay sheekadii baydan marka waxay istiraahdaa ninkan baashiyo horta markuu gurigaaga yimaado ama uu kugu yimaado oo kula sheekaysanayo waxaad tirahdaa waryaa dhegeyso waa tii aad igu tiri waan guursanaynaaye xaggee arrintii ka baxday ku dheh cayri haddii kale waxaad tirahaa war aniga agtayda ha isku imaan afar waxyaabo intaasoo hadal ayaa qalbigeed kusoo dhaca laakiin waa naf wax jecel markii baashi u yimaado waxba ma tiraahdo halkiibay kasii wadaa sheekada yareedo xishoodka ii waran fiican bow sidaas wey iyo nimankii kaleeto shaamkaaga haye waa kiiska waal asagii waa yaabanya wax la kala yaabanaadaba oo boofiskii wada hayaba hameenkii dambe ayuu beesha soo baxay wuxuu yidhi caaway burya biya loo kala baxay bal waxaad samaynaysaa qoftii baydan ahayd jiq kaga dhigo waxaad tirahdaa waxyaabo aan la filayn ku dheh haye goor dambe xoogaa ahayd oo dadkii soo aruuray daaqadiibuu ku soo garaacay guri xoogaa daaqadiisu bannaanka ahayd buu ahaa gow yaa waayo waa baashi baydan hameenkaas keligeed bay ahayd albaabkay ka furtay wuu soo galay markuu soo galay oo kuraasta ku fadhiistay oo uu wax yar guriga ku jiray ayaa qof kale soo garaacay daaqadii gobgob albaabkay hore ugu baxdo qofkii way la hadashay qof ninuu ahaa oo isaguna malaha shukaansi doona way u baxday berigi hore dee telefoon iyo social mediahani aduu muddo xoogaa ayaan horay ahayd oo dee waqtiyadan social mediaha iyo adduunyadan iyo waxaan iyo facebook iyo whatsapp iyo feber iyo waxyaabahan ma aysan jirin gabadh waa la soo aadi jira un waxay tiri albaabkii marka lasoo garaacay waan u yara baxay qofkii waxaan ku irbay tiri walaal nabadgelyo waqti ma hayo ninka odagaa baashiga boofisku hayay guduhu ku jiraa markay soo noqotay buu yidhi abbaay yuu ahaa qofkii guriga soo garaacay gabadha iyo marka wiilku isku qabiil maaha waatan hore u sheegay isku qabiil ma aha waa laba qabiilo waaweyn oo dadkan qabiiladan la sheega ah laba lafood waaweyn bay ka dhasheen marka dadkeeda ma yaqaano markaasay ku tiri waa midaan ilma abtinahay
وقرابنا هاي إلا باش waxay ka ilaalinaysaa maarta inuu yaraa maarta buufis ilaa waaba nin buufis ayuu asoo iska batacana ayaan ma ogaa markaasuu ku yiri baydanay beri baa gabar wuxuu yiri laba nin soo aadeen buu soo shaqaynay mid baa soo hormaro gudaha ka soo galay buu yiri midna dib waa maamaha uga dhigay nacam sheek ka dhacday buu ka dhigay laakiin maybe waa asaga ku socota wuxuu yiri markuu mid gudihii soo galay mid kale soo gargaraacay kii waxay tii soo gargaraacay bay u tagtay wuu su'aalay wuxuu yiri gudaha ayaa ku jira markaasay ku tiri buu yiri war waa mid eeyo meelaha iska taagtaagan baa gudaha ku jira haye waa yahay eeyga sheekadiisa caaw naga soo hameen duman nagu soo noqon okay nabad galiyo gudihii bay ku soo noqotay soo mahmaayo ku dhigay sheeko ka dhigaya gudihii markay soo gashana kii gudaha ku jira weydiyo wuxuu yiri abaayo qofkii soo gargaraacay ayuu ah markaasay ku tiri aboo wuxuu ah mid eeyo meelaha iska taagtaagan markaasuu yiri buu yiri walaalay haddaan laba eey mid noqonayo midka gudaha ku jira aan noqdo ilaa waa baashiyo buufis garka u taagan baashi wuxuu ku yiri baydanay caaw sheekan ku haya soo daabay ku tiri ayadoo wixii ay haysay oo dhan oo ay dhahaysay hadduu baashi kuu yimaado yaa aad tiraaheed wadeeyow waxaadan guursanayaa baa igu tirisha badbac baa igu xirto ballan baa iga dhigatay xageed wixii ku dambeeyay aad tiraahid naagtii lahayd markay aragtay shibay tiri baasha de weligiis ba asagaa ka yara roonaayo wuxuu yiri baydani caaw sheekan ku haya soo daa walaalay ma ogtaa sanad iyo dheeraad inaan aniga adigu isjeclayn waa haa saas waa u dhowdahay tiri laakiin ma ogi walaa haye ma ogtaa inaan walaalay ku jeclahay sheekada bas halkii ay hellow ila baashiyow buufis waa wuxuu ku hayaa maxaa kaa galay wuxuu yiri abbaay dhageyso haa soo daa waxaan rabaa buu yiri inaan aniga adigu soo afjarno sheekadii oo isguursano waa guurkii ay filaysay muddo badan qalbigana ay ku haysay baydan oo ay lahayd mar alla markuu baasha kuu yimaado aad istiraahdi muddo badan sanad iyo bar oo iyo dheeraad ay qalbiga ku haysay baashana hameenkaasuu ka yara qacsiyo wuxuu yiri baydan haye baydan way aamusta mar labaad buu ku soo celiyay wuxuu yiri baydanay waad ogtahay sooma inaan ku jeclahay baydanay waad ogtahay soomaha inaan guur ku heshiino shib baydanay insha allahu waxaan rabaa inaan hameen dambe isu soo mehersan shib sheekadii baashi iyo baydan xubbi iyo xishood jacaylkii yaa jacaylkii dhagaha la-aa oo baydan aamuskii baashiyo soo bandhigay dhowr kelmadood oo aan caadi ahayn iyo baydan oo aamustay halkaas ayaan ku soo gabangabeynayaa maantay meel yara qoraxana waan fadhiyay cabaar alxamdulilah rabbil caalamiin I hope in filimka uu fiicnaado waxaan kaloo idinka rabaa sheekadu waa qubane waa sheeko xiiso badan intaas kuma dhammaanayso wajiyo badan bay soo maraysaa sidaasna kuma harayso aamuskii iyo bandhigii guurka kuma dhammaanayso sheekadu way soconaysaa abid ilaa iyo maanta la joogo la socda waa inaad sheekadaas la socotaan jacaylku berigii hore gabdhuhu siday ahaayeen iyo siday maanta yihiin idinkoo fiirinaya nacam waxyaabaha sheekadaas ku dhex jira gabdhihii hore iyo gabdhaha hadda jooga guurka hore iyo guurka hadda jira jacaylka hore iyo jacaylka hadda jira shukaansiga hore iyo shukaansiga hadda jira idinkoo waxyaabo badan kala soo dhex baxaaya waxaan oran karaa jacaylka labadaas qof kii xaawiye aadan
oo laga sheekayn jiray inuu la yaro wax wadaago waxaan rabaa marka inaan intaas ku dhammeeyo laakiin maxaa noo ballana saaxiibayaalow like subscribe-ku waa muhiim waa midka ugu muhiimsan maxay ahayd gambaleelka oo taabsataan iyo share aad ku dhifataan waa sheekadan waxaa la rabaa inay ka faa'iidaan hadday faa'iido leedahay hadday faa'iido daran tahaba horta wixii committee iga soo baxsha waan kasoo jawaabana waa ka sheekaysanaynaa oo committee ka soo baxsha sheekada qof walba sida ay la tahay guurka hore bahalka shukaansiga hore shukaansigan guurka hore guurkan gabdhihii hore gabdhahan maxay ahayd committee ka soo baxsha gambaleelkan taabsaseen kugu soo dhacda ula socotaan dee sheerkana inoogu dhifta maxay ahayd subscribe-kana igu dhifta si aan ugu wada faa'iidno horaan kugu sheegay youtube-yada aan samaynaya waa samafal haddii ilaahay idmo aan ku guulaysano waa ku wada guulaysano keligay ma guulaysanayo waa waxa aan wada yeelan doono insha allahu marka sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulantay saaxiibayaal waana isla socon doonaa never forget okay bye